السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داويال سرودا channel كلورات وكلا سو كرتان يوتيوب. marka isbuucan waxa weey waa July bablawt. Marka Soomaaliya waxa loo xafladeynayay maalintii xornimada, sanad guuradii xornimada dalka Soomaaliya baa loo xafladeynayay. xornimada qaranka baa loo xafladeynayay. Marka waxaan waxa weeye oo inta wajidaan waxa oo xafladeeyay waxa weeye waxa dawladku sheega ah sababtoo ah qarannimada xornimada la sheegayo waa khiyaal weey wax jira ma aha. Marka waaga hore Soomaaliya markay jirtay dawladnimada runta ah waxa weeye xornimo runa ka jirtay, qarannimo runa baa ka jirtay. لكن laga soo bilaabo saashinkoodii ilaa hadda waxa way waxaas waa tagtay marka maanta wadanka ma jirto xornimo qarannimana kama jirto marka dadka halkan jooga oo halkaas xafladeynay badboodaya waxa way been iyo khiyaali baa la isla hortaagay waxaan jirin baa la xafladeynaya maanta Soomaaliya sabab oo xornimo loogu xafladeeyay ma jirto marka dadkana inta wajidaan waxaan dawladku sheegaa xornimada xafladeynaya waa been iyo khiyaali baa halkaas la taagay waxaan dawladku sheegaa laftigooda xornimada wadanka ku ciyaareen oo shisheeye gacanta u gelinaya marka soo ogtiin maanta wadankii iyo dhulka Soomaalidu ay leedahay qaar badan baa gacanta Itoobiya u jirta qaar kalena Itoobiya laga celinayaa ciidamo Itoobiyaan ah oo maalmo ka hor ka soo tallaabay xadka kuna sugnaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan marka askartoodii baa maanta waxay gaardinayaan Soomaaliya dhul meel badan oo Soomaaliya ka mid ah bay ka shaqeystaan oo admis bay ka mid yihiin haddana meel kalena xoog iyo bay ku joogaanba marka meesha xornimo kama jirto xornimada oo xamar loo xafladeynayo waa been iyo khiyaal weey marka inta wajidaan waxa askarta Itoobiyaanka hor ordaya waa waxa qurunka madaxda ka dhiganaysan soo wajidaan marka soo wajidaan wax maanta Soomaaliya madaxda laga dhiganayo kulli waxa weey waa jaajasuusin weey shisheeyaha la shaqeys marka waxa wadanka shisheeye u duleynaya oo wadankii xornimada ku ciyaaray oo waxaan way qurunka madaxda ka dhiganaysan soo wajidaan marka halkaas ay inta wajidaan waxaan waxa weey maamul goboleed buu madax ka yahay askarta Itoobiyaanka la shaqeysa soo wajidaan la shireen marka waxaas kale baa maanta wadankii madax ka marka xornimada maanta xafladda waxa xornimada lagu yeeray oo lagu xafladeynay xamar marka ma jirto iska daa jaajuusinta Itoobiya oo la yaqaanay hebel loo yaqaan baa maanta wadankii madax ka marka ka mid kamid ah qurunkan soo wajidaan wasiir maanta wadanka iyo wax dawlad ku sheega baan la yaqaanaa inuu jaajuus Itoobiya mid kalena waa kana waxa weeye hay'adda nisa uu maareeyo u yahay marka jaajuusintoodii baa xitaa ka jaajuusinta Itoobiya baa maanta wadankii madax ka marka xornimada maanta xamar loo xafladeynayo been iyo khiyaal weeye haddana dhibka jirta waxa weeye mahmaah maqashana malaynaya oo la dhahayo nin baan gob ma marka tii kala Soomaaliya bay haystaa maanta wadan oo macaawino qaata xorma marka macaawanada oo la wareegayo waxa weeye markii macaawano la qaato xornimada dalka tageysa sababtoo ah waxa weeye wadankaas xor uma inuu go'aankiisa gaaro xor uma inuu wadantiisa u shaqeysto hadda si inta wajidaan hadda halan tusayaa xisaab xir ay sameeyaan waxaan dawladku sheegay xamar joogaan marka inta wajidaan waxay tusayaan macaawanada ka qaataan shisheeyaha soo wajidaan marka hadda 2020 ka soo qaad example han lacagta qaar bay Turkiga ka helaan 15 milyan inta badana 138 milyan bay ka helaan World Bank African Development Bank 27 milyan ka helaan European Union ka 8 milyan bay ka helaan marka waxaan dhan waxa weeye waa lacag shisheeye ee keeneen marka dawladda waxa weeye aad iyo aad waxaan ugu muhiimta marka dawladda la'aanteed lacagta ma jirayso ma sii jiri karto marka haddii oo shisheeyo lacagtooda joojiyaan waxa weeye waxa dawladku sheega waxa weeye isku dhex daadanaysa sidii Afghanistan oo kale
Even before the Taliban's takeover, Afghanistan was highly dependent on foreign aid. That aid ended after the Taliban came to power, and sanctions were imposed by Western nations. Maraykanku markay dhahan waa ka baxayna wadanka si isku dhaceen bay waxa dawlad ku sheegay xamar joogan isku dhaxaysa marka waxa weeye waxaan dawlad ku sheegay xamar joogan waxa weeye horma ilaa laga qaadanayo lacag macaawinaha shisheeyaha laga qaadanayo marka lacagta oo la qaadanayo oo macaawinada ah shuruudo iyo amar baa la socota yaa marka hadda United Nationka ninkan bay soo dirsadeen hadda oo marka ninkan waxa weeye ANSOM hay'adda la dhahayo oo Soomaaliya ka shaqeysa ninka madaxda waxa weeye marka ninkan waxa madaxa oo Soomaaliya jooga dhan uu ka baawarbayay yaa amarkiisa soconaya marka taas waxa weeye waxa suurtagal ka dhigtay waa macaawinada la qaadanaya marka wadan macaawino qaadanaya xorma marka xafladahan inta u jeedaan oo looga xafladeynayo xornimada oo ka dhacaya xamar waa been khiyaal weey marka wadan macaawino qaata waa wadan xor ah macaawinada wada la siinayo Soomaaliya waxa weeye shuruudo badan baa la socota amar badan baa la socda marka haddii diiday amarkaas shuruudahaas macaawinadaas ma jirayso haddana Soomaalida laftigeeda dadweynaha Soomaaliyeed ayaga laftigeeda xitaa qarannimo ma aaminsana yaa Soomaaliya waa ummad qabiileed weey yaa marka waxaan qarannimada lagu sheegayba ma yaqaanaan marka qof Soomaali oo jid mar hadaa aragtid qarannimo iyo sharaxda tirahdid kuma sheegi karo sababtoo ma yaqaanaan mana socdaan danna kama leh marka waxa weeye maanta Soomaaliya sabab ay maanta u jirto ma jirto sababtoo dadkii oo wadankan lahaa waxa weeye qarannimo ma aaminsana marka qabiilad baa la aaminsan yahay yaa marka jidaan wadankii waxa weeye saas baa laga dhigay saas baa loo jirjirtay soo jidaan qayb baa loo jirjiray qabiil walba qaybtooda qaateen calaal bay darbi suurteen Hebeland Hebelstead waa isku yaraa marka waxa weeye qarannimo horta saas bay ku deys marka maanta waxa weeye xafladan oo loo xafladeynayo 1 July oo loo xafladeynayo xornimada dalka Soomaaliya iyo qarannimada dalka Soomaaliya loo xafladeynayo waa been iyo khiyaal weey sababtoo wadankii xornimo kama jirto haddana dadkii wadankan lahaa ma aaminsana qarannimo